Bismillahi Raxmaani Raxiim. Khayraad gaarsiin marka la soo dhawaada waxaan hore u sii wadi doonaa kooraskeenii ahaa Microsoft Excel. Maanta waxaan qaadan doonaa cashirkeenii toddobaad. Cashirkan maanta waxaan ku baran doonaa wax loo yaqaano mini toolbar iyo shortcut menu. Labadaas shay oo aad muhiim u ah markii aad isticmaalaysid Microsoft Excel. Cashirkan marka uu dhamaado waxaan baran doonaa shortcut menu wuxuu yahay oo markii la isticmaalayo Microsoft Excel. Sidoo kale mini toolbar halkuu ka soo baxaa seena loo isticmaalaa. waxaa kaleeto ku baran doonaa hababka sida degdega ah loogu soo saari karo iyo meelaha ay ku shaqeynayaan iyo functionska marka uu shaqeynayo iyo marka uu shaqeynaynin. Kusoo dhawow cashirkeena maanta. markii aan soo kicino Microsoft Excel keena isticmaaleyno mini toolbarka ama markii aan rabno in aan ka shaqeysiino waxa loo yaqaano shortcut menu. Shortcut menu horta waa wax ku ogolaanayo markii aad doorato object ama aad doorato cell ama aad doorato row ayuu ku soo bixi doonaa marka. Wuxuu kugu soo bixi doonaa tusaale ahaan waxaan right click ku dhahay cellkaas marka right click ku dhaho halkan ku soo bixi doona ayaa waxaa loo yaqaanaa shortcut maxaa la yiraahdaa menu. Sidoo kale mini toolbar waa halkan sare kan kaaga soo bixi doona oo isla shaqeynayaan markaas. Haddii aan doorto column-ka oo right click ku dhaho at the same uu ii soo bixi doonaa. Waxa ii soo baxaya marka waxay ku xirnaan doonaan hadba objectiga ama cellka ama row-ga aan doortay ayay ku xirnaan doontaa marka meesha aan ka doorto marka right click markaan dhaho kuwaas ay soo bixi doonaan. Tusaale haddii halkan aan copy aan dhaho kadibna aan right click halkan ku dhaho waxa ii soo bixi doona functionskan maxaa la yiraahdaa paste inaan sameyn karo, insert copy inaan sameyn karo, waxyaabahaas oo dhan inaan sameyn karayo. Laakiin haddii aanan copy aada wadan oo right click dhaho paste oo kale ima shaqeynayso, quick analyze oo kale ima shaqeynayso marka. So waxay ku xirnaan doontaa markii aad isticmaalaysid shortcut menu-ga halka aad dooratay iyo wax aad dooratay wax ay yihiin ayay ku xirnaan doontaa marka. Waxaa kaleeto jiro oo cashirkeena maanta aan ku baranaynaa markii laga soo tago mini toolbarka waxa loo yaqaan mini toolbar. Mini toolbarka waxay tahay markii aad text ama shay aad dooratid ayuu ku soo bixi doonaa marka si aad shaygaas aad wax uga bedeshid marka. Tusaale waxaan highlight saaray maxaa la yiraahdaa textiga. halkan wax kaaga soo bixi doona ayaa loo yaqaanaa mini toolbar. Mini toolbarka wuxuu ku ogolaanaa marka inaad farta aad bedeli kartid nooc ay noqonayso. Wuxuu ku ogolaanaa size-ka inaad wax kaba bedeli kartid oo fartan wuxuu ku ogolaanaa inaad bold ka dhigi kartid, inaad italic ka dhigi kartid, color inaad saari kartid. waxyaabahaas oo dhan ku ogolaanaa marka. Mini toolbarka marka waxyaabaha functionskaas oo ku sameynayo ayaa kuwa kuu fududeynaya marka. labadaba sababta loo isticmaalayo ugu weyn waxay tahay intaad ribbon-ka aad ka raadin lahayd font textiga iyo boldiga ayaa loogu talagalay si degdeg ah inaad ku isticmaasho marka oo mid walbana uu ku noqdo tool si degdeg ah aad u isticmaali karaysid marka. Maanta waxaa baranay laba tool oo aad muhiim u ah oo kala ah quick shortcut menu-ga sidee loo isticmaalaa, sidoo kale mini toolbar sidee loo isticmaalaa. aad iyo mahadsantihiin waa inoo cashir ka xiga insha Allah.